السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كسو دوادا مريكتو هرسيد waxaan idin la wadaagayaa maanta mowduuc aad qiimo iyo qaayo leh mowduucan waxaan ka soo xigtay buugga Cabdiqaadir Arooma Allah u naxariistay ee sooyaalka Soomaaliya mowduucan waxa magacan uu uga dhigay toddobada bilan ee Belehoris waa toddobadii shay ee ummadda Soomaaliyeed asalkeedii iyo awalkeedii horeba sababi jiray colaadaha iyo dagaalada la isku dili jiray ragna u dhiman jiray xinjirna loo daadin jiray toddobadaasi waxa ugu horeeya shayga loo yaqaan geela oo laf dhabar u ahaa ummadda Soomaaliyeed iyo ummado badan oo kaleba adduunkana wax badan la isku dilay geela isagoo suugan lagu cabirayaba wuxuu ninka yiri diraacaha kulul ee dadkuba lumay doobi xoorliya dambar jawlo markale waxa tixihiisa kamid ah meel xinjiritaal oo ku xarbiyay xayaado lolay waxaad ka garan kartaa qiimiga uu Soomaalida u lahaa marka ay suugaanta ku cabirayaan iyadoo afki ummaddu isku gudbin jirtay dhambaladuna waxa suugaantu gees ka gees na gaari jirtay wax badan dagaalo ka dhacay geela waad maqasheen wax badan oo geel la kala qaaday waa la maqlay geeli inta badan xataa wax badan dadku way garan karaan wiil marka doobi oo geel jira ahba waxa uu isna markale ka yiri umul wiiliyo aroos maahide maxaa unsiga arooryada hore kaaga soo horay inagoo wada xasuusan karnaa Cumar Australia gabaygii qiimiga lahaa ee uu ka tirinay waxa uu ku cabirayay isagoo mar uu cabirayo manfacaadkii uu lahaa caanihiisa kala lahaayeen ayaa waxa uu ka yiri dhibaatiyo adoo gaajo qaba dhaxanta jiilaalka dhowr caana laga soo liso yara dhanaanaaday nin dhadhamiyay uu garanayaa dhulay qaboojaane dhalaanimo qodaxdii kugu mudda kaaga soo dhiciye goortaad dhantaaba jirkaba dhididku qooyaya raga lahaha si dhowrayow dhaqasho waa geele markale isagoo xaaji kale ka hadlaya ayaa waxa uu yiri marka buu adduunyada u yahay macallin oo geele magaalada Hargeysa iyo Jigjiga moodka waxa keena ee adari Marsayl ka dhigay muranku waa ceebe waa murqadoon low ratigu micidu weynaatay intaa lafteeda waxaad ka garan kartaa in xaqii adeegsigii si rarka oo kale gaadiid ahaan halku ku jiray maxaa labaad waxa xiga oo la isku dili jiray waa dumarka haweenku waxay mar labaad ka gali jireen ama gabdhuhu brimageedada ay marka labaad galaan marka laga yimaado toddobada bilan gabdhuhu waxay haayeen iyaga laftoodu laf dhabarta nabadda ummadda Soomaaliyeed halka kaliya ee nabad dhaliya ayuu xilliyada qaar noqon jiray marka ay dhacdaba dagaal ee laba reer isdilaan dumarka la kala qabo ee reeraha u kala dhaxay ayaa mararka qaar nabadda dib u soo xiri jiray oo xarigi furtay dib u soo gunti jiray iyaga ayaa laftoodu ahaan jiray xiriirka ummadda Soomaaliyeed mar labaad isu keena dumar ayaa habeena u dhixi jiray si ay nabad u soo xasiliyaan oo reerka kale ay ka dhasheen uga soo hooyaan waxa ahaan jiray wax la isku dilo waxay ahaan jireen waxa ugu qaalisan ee la isku dilo oo rag badan u wiil galeen ninba isagoo ka hadlayaba wuxuu yiri dhaxyar dhabarna hoobaan ninku dhalay dhaleel beel ninku waayay weer xidhay ninku helay hurdada bogay macnaha ninku waayay weer xidhay wuxuu ka wadaa nin jeclaaday oo ku haminayay oo waxaan ku aad ugu hanweynaa marka lagu yiraahdo heblayo guursatay ama uu ogaado in laga qaaday weerkii waa qasbiyan wax xiranaya waa halaalaya haweenku waxa lagu dooran jiray aan ka soo qaadan karno xagga diinta quruxda nasabka iyo maalka iyo diinta ay leedahay badibana ay diintu muhiim tahay Soomaalidu lafteedu shan bay ka yiraahdeen waa inay yeelataa taalnimeed oo karti iyo joog iyo jamaal ba isku darsataa waa inay aqbalnaageed yeelataa oo ay noqotaa qof nugul waa inay arrinkeen waayeel noqotaa mee qof maskax degan macnaha waa inay noqotaa af muslim ku hadasha been iyo xaaraan ay ka hufan tahay macnaha
waa inay anshax culimo yeelataa oo ay diinta ku dhaqantaa. marka laga yimaado labadaasi hore waxaa saddexeeya gamaanka waxa loo yaqaano. gamaanka halkaasi haddii aynu sii furno waa lo''da, dameeraha iyo fardaha. welibana farduhu ugu sii qaalisan yihiin marka loo yimaado lo''da nugulta iyadu gelaysa la iskaba dhaafo, laakiin dameeraha laftoodu gaadiid ay noqdaan. waxaa loo adeegsadaa inta badan guluf dagaal oo kale oo fardihiya, in safar dheer oo kale in lagu galo, in xaraga loo adeegsado, iyo in gaadiid laga dhigto dameeraha markaan ay imanayso gaadiidku. inta badan gamaanka waxaa la yidhahdaba marka la isku dili jiray, oo fardaha waa la kala qaadi jiray oo sida geela iyo gabdhuhu soo saddexayn jiray, marka waa la isku dili jiray. waxa afraad oo iyagana la isku dili jiray ummadda Soomaaliyeed dhexdooda la kala qaadi jiray waxa uu ahaa beeraha, oo dhulka laftiisa lagu dagaalami jiray. ninbaa isagoo cabirayaba waxa uu yidhi ningeedu u buuxaa gari u go'da. mar kalena nin kale isagoo suugaan ku cabirayaba waxa uu yidhi beer nimaan falin, bowd u dhigin weyn, bahal celin karaa, biyo ugu di'in, daw barwaaqa, badar uga bixin, bakaar lagu shubo, baahi weligii waa u bilan yahay. macnaha weligiiba waa u bacdiyaal baahida. waxaa shanaad ee la isku dili jiray ee ummadda Soomaaliyeed kala qaadi jirtay waxay ahaayeen biyaha. wax badan wayna xasuusan karnaa, ceelal badan oo la isku laayay, ummad badan ku dhimatay, sheekadii qabaalka la wada yaqaana. wax badan ummadda Soomaaliyeed biyaha way isku dishay laftooda. biyuhu waa waxa kaliya ee ummaddu aanay la'aanteed noolaan karin. waayo waxa la yiraahdaa jirkeenu wuxuu ka kooban yahay 70% biyo ka kooban yahay. maadaama uu inta ka kooban yahay, de qofku biyo kama maarmi karo, xooluhu kama oomanaan karaan, sida aawadeed waa la isku dili jiray. waayahay waxa xiga oo intaasi soo lixeeya baadka waxa la yiraahdo ama daaqa xoolaha. beel walba dhul bay qabsan jirtay, deegi jirtay, marka inta deegaanka ay xooluhu u daaqaan hadii xoolo kale ay soo galaan waa la isku leen jiray, ama reer dhan baa laga barakicin jiray meesha uu deganaa si baad iyo daaq loogu helo xoolaha. ninbaa isagoo suugaan ku cabirayaba waxa uu yidhi naqada ay nasteexada dhacday iyo naaxa lala jiifo, nimcadiiyo naruurada la helay iyo ubaxa noo fuuray, maxaa loogu naaloonayaa nabad lahayn waaye. hadday nimanku reer hebel yihiin naaqus baa galay. intaa markaynu ka nimaadno waxa ugu dambeeya oo 7 ku ahaa dariiqooyinka wax la yiraahdo. dariiqooyinkii diintu u kala qaybsami jirtay ama firqooyinkii ayaa iyaga laftooda la isku dili jiray oo sababi jiray colaadad beelad dhan isku laayaan. oday la yaabay dhaqankii Sayid Maxamed Cabdilla Xasan oo wadaadaha oo beelaha qaar intuu ku duulo xoolo dhici jiray ayaa geeraar yar ku sifeeyay wax yar. wuxuu yiri col ashraafi wacay si caalim reer dhacaya cilmi geel lagu qaado, sayidkii calmanayay amriyo ku simaayo erbteedo ogaada. culimada waxay yiraahdaan mahma hore oo ummadii hore ee Soomaaliyeed ka tagtay qiil u baneeya iyo midi uu ku qashabo wadaad baa leh. taas oo inta badan la isku dili jiray keeni jirtay in culimadu sheekha kale uu ka farqada kala ah uu aad u liido oo aad uga xanaaqo oo uu dhibsado, sida haddadan lafteeda dhacdaba qaadiriyada iyo firqooyin kale oo hadda jiraba inay ishayaan oo mabaadi'da iyo madaahibta ay kala haystaan ay isku hayaan. haddaba ummadda Soomaaliyeed 1950kii wixii ka dambeeyay haddaba sheeka intaasi ka dhaafsan baa in ku soo biirtay. horta intaynan inta dhaafin toddobadan waxa lagu xallin jiray haddaba khilaafyadooda iyo dagaalka ka yimaada iyo colaadaha ka dhashaba waxa lagu xallin jiray 6 kamida xeerkii iyo xeer beegtidii iyo xeerkii Soomaalida hore. marka inta laga yimaado dariiqooyinka waxa lagu xallin jiray iyadoo loo noqonayo kitaabka Quraanka ah iyo sunnadii Nabi Maxamed sallallahu alayhi wasallam oo iyada diinta waxba lagu xallin jiray usuusha diinta. inta markii laga yimaado waxa ku soo biiray inta xilligii 1950kii wixii ka dambeeyay ummadda Soomaaliyeed masiibo kale. masiibadaasi oo aan lahayn dhaqan horena aan looga haynin xeer,
mid cusubna aan looga curinin. dhacdo ugub ku noqotay ummadda Soomaaliyeed ilaa iyo maantana ay xal u leedahay waa siyaasadda waxa la yiraahdo. Siyaasaddu waxay kala geysay dad walaalo ah, waxay kala geysay dad way isqaba, waxay kala geysay ummado dhan ay kala geysay. ummadda Soomaaliyeed ilaa iyo maantana waxa kala qoqobka ku xidhay waa siyaasadda. bal wixii dambe siyaasadda waxaan uga tagi doonaa inay bulshadu waxay ka soo tidhaahdeen dhaqankii hore maxaynu xeer kala xaan jirnay aynu dib ugu noqon doonaa mawaadiicdaasna insha Allah gudaha u daadegi doonaa.